dunida korkeeda ayaa waxaa la isku dhaafaa nasiib nin iyo naag haddii ay isguursadaan waxaan dhahnaa Soomaali haddii ay tahay waxaan isku keenay calaf laakiinse nasiib ayaa isku keeno haddana nasiibka kala wanaagsan ee habeeneedan aan maanta sheekadeed idin hayo ayaa nasiibkeeda waxa uu noqday nin aad u wanaagsan balse dhaafisay dabeecado ayada u qaas ahaa dabeecadahaas aan ka hadli doonaa channelku waxa aan kusoo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqo ah falogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقاليقة ولكن سوء إذن لي أنا وعفمات قامل والبدوني دي أكتوبتان وحاني رجينا أنا دي عفمات قبطان سوء دبادة وغمرك لأيو فيديو عصب فيديو كان أيان مانتا وحان كدو الاستاجد دونا قصة آد عجيبة قصص أو كرد عادي دلك السودان وحبضان وإذن كجسو شيكي مصر بحريضة لحكي ساعة وحان كونا صدونا السودان أيان دول ديجي دونا شكرا إن مانتا أي وحي كسعتها ويل لغو مقعاو أما نين لغو مقعاو أحمد وحا وكشقي جري إسبتال وين كويا لقرطوم وحو كميت أهادتك ميددك لقو شقاس أسيغو مدبادن كجرو أي وحي وقرسدي قبر لغو مقعاو ليلو مركي إسقرسدين أي كدب وحو وطوفي دالك السعودية عربية سي نولشان وجرو أم شقادان وجرو شقا كواناكسن أو يعني لعك في عن وكهيدي كرو ugu soo shaqeysto isla leelo arintaas aad ay ugu faraxsaneed oo Axmed ma uusan ahayn raga gacanta adag oo yani xaasaskooda la xisaabtabo ama dhaho yani intaan biil u qaado wax al wuxuu soo shaqeeyo intuu asiga wax yar oo meel dhigtama inta kale ayada ayuu sii jiray balse leelo maxay dabeecadaheeda ahaayeen waxay ahayd gabar yani baqiilnimo meesha ay ka gaartay aan bajeclaanbo in ay wax soo iibsato gani in ay sarifto iska badaaye mararka qaar waxa laga yaabaa inay xataa cunto samaysanin badana ninkeeda uu ka maqan yahay oo dalka Sacuudiga ka soo shaqeynaya ayada kaligeed ayaa guriga ku nool baqiilnimo meesha ay ka gaartay xataa haday u timaado marti wax shaax xataa dibka ma u saari jirin wixii samee jirtay wixii dhii jirtay aniga mararka qarwaaba Soomaabo si aan dheed u sameeyo oo jirkeygana wax iska bedelo oo maanta waxa ku soo toosteen anigoo sooman waa aan ka xumahay sababtoo hadii on qaxwo karsado yani aan idin kugu soo dhabeey qaxwada ana ii soo carfee inta baqiilnimo ay ka gaartay taa waxa u sii dheereed nadaafad daro inta laakiinse Axmed ma isa u muuqan ee waxa uu u muuqday nolosha uu ku jiro si uu ugu bixi lahay oo uu heli lahay shaqo asiga u qaas ah mar walba oo fasax oo soo qaato oo xaaskiisa u imaadani wuxuu rajay jiray in uu caruur Ilaahay siiyo laakiinse ma aysa dhici jirin uu laaba jiray haddana uu imaana uu laabana haddana uu imaana uu laabana intaas waxa ay isku gaartay 5 sano kadib Axmed wuxuu uu saaxiib la noqday nin lagu magacaabo Maxamed qaasatan oo ka soo jeedo Khartoum sida aniga aan isku raadsano oo kale ay ayagan isku raadsadaan sababtoo ah markay ay yani wadan shisheeye ay joogan dadkan ay yihiin dad oo famila ama dad meel ka soo wada jeedo isku deegaana أكيد وإسوريسانيان أنت ماشي كدقنتا Soomaalida ay u badan yihiin Maxamed iyo Axmed waxay noqdeen saaxiibo isku dhow haddana isku danahoodii ayaa isku keenay Axmed wuxuu markasta ku riyoonayay in uu helo shaqo asi u qaasa oo madax banaan oo asi iskale isla sidoo kale Maxamed oo asigana muddo meesha ka shaqeynayay riyadiisa waxa ay ahayd mar in uu tukaan asiga leeyahay oo Khartoum ku dhax furto ragii markay sida isku fahmeen sanadkii xiga markuu u imaado waa sanadkii 6 xaaskiisa ayuu wuxuu ku yiri waxaan bartay Maxamed waxaan u sida alaab familkiisana waanta way noo imaanayaan si aan yani soo wanaagsan aan iskugu sii barano laakiin maba ogobo gurigiisa koob qaxwe in aan lagaba cabinbo xaaskiisa ee martisoorka aad ee ugu adag tahay
markii ay afka furtay maxaa maanta sameynaynaa qarashkaasay dhan maxaan gelinayo haddaan aan baxno oo aan yacni jidka waxooda oo ku siina ka waran waxoo dhahay waxaasi nin dhan aan bartay waa lagu weyn yahay ceeb waaye waa in aan guriga ay imaadaan reerkii maxamed iyo waxaa isbartay axmed reerkiisa kadib axmed wuxuu u laabtay dalka sacuudi carabiya kadib ayay waxay iswareysteen maxamed wuxuuna ku yiri caruur miyaa leedahay badanaa carabta sida ogtihiin waxay isdhahaan abuu hebel abuu fulaan abuu kida laakiinse ninkan magacii axmed uu iskaga dhigan yahay mararka qaar wuxuu iska dhahaa aabihii riyada ayaan ahay sababtoo ah waaba nin asiga oo dhan riyo ku nool laakiin maxamed ayaa taas wuxuu yacni ku baraarujiyey in uu u baahan yahay in uu ilmo helo askiisana haddii ay xanuunsan tahay in uu dhakhtar geeyo haddii si xanuunsaneen yacni oo qadar rabbi ay yihiin oo istijaabiyo ninkan mabo yacni hobbigiisa ma ahayn in uu naagtiisa naag la shukaansado ama naagtiisa qiyaameeyo waxaas ma uusan aqoonin mana lagu ka seeninbo naag si walbo areeba ha ahaato doqon ha ahaato yacni mirka xataa ha la aato hadduu mar maseer galo hurdadii ka kacdaa أكيد هردده وإيك هدي درين كاسب أو صوغلو محمد سند كي دنبو أسيغ أيا هداني يمادي أو توكريس أيا إهاد كدبنا مركي هربو لبا عرور أيا وجوغين عرورتي سدحات أيا أو على القشي وونا بحي وحو براقداس أوغيي أحمد أو ميل إسكفاديو أو يري ورموالانتها ماشا كاكسانت كهداب بحديد إنا سو غورستيد ماهاني hasoo laabanin isla sanadkaas ay hadan wixii boqorsheenooyin bagawi ahaanba in ay shaqadii Sacuudiga iska soo gabagabeeyaan xaafadooda Khartoum ay ka sameystaan shaqo Ahmed wuu imaaday markuu imaaday indhees ayuu galay waayo meeshaan wuxuu isleeyahay wax ma kaaga soo indhacdo hadda halka ku sabraysid ma joogo naagti waatana qaylo